Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kale muuqaal kaloo xiiso leh kaasoo aan kugula wadaagi doono 5 sirrood oo lagu gaadho guusha. Inaad noqoto qof guulaystay macnaheedu waa inaad ku guulaysato dhammaan hadafyadaada ama inta ugu badan hadafyadaada, ilaa aad noqoto dhab ahaantii mid ku qanacsan noloshiisa. Sababta ay dadka badankoodu guul u gaari waayaan waa iyagoo fikrado qaldan ka aamina guusha, fikradahaas oo ka hor istaagaya inay waddada saxda ah qaadaan. Muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa furayaasha guusha, kuwaasi oo qof kasta u saamixi doona inuu gaadho hadafyadiisa oo uu noqdo mid guulaysta. 5 sirrood ood ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay. Tirada isku-daygaaga waa inaad isku-day badan samaysaa haddii aad rabto inaad guul gaadho. Waa inaad ku talo-gashaa inaad marar badan guuldarraysato ilaa aad ka helayso guushaada. Isbeddel samee markaad guuldarraysato. Isbeddel samee oo beddel xeeladii hore iyo qaabkii hore ee aad raacday. Isku day inaad ogaato sababta aad u guuldarraysatay si aad u hagaajiso isku-daygaaga xiga. 100% aamin inaad gaadhayso hadaf kasta oo aad leedahay iyo himilo kasta oo aad nolosha ka leedahay. Baro sababta ka dambeysa guuldarradaada. Inta ugu badan dadka aan guusha gaadhin waxay dareemaan caawimaad la'aan. Taasna waxa ugu wacan ma garanayaan waxay sameeyaan si ay u guulaystaan ama ay u gaadhaan hadafyadooda. Mar kasta oo aad guuldarraysato, baro wixii kaa khaldamay. Waa inaad barataa sidaad xal ugu heli lahayd waxa kaa hortaagan guusha. Haddii kale, weligaa guul gaadhi maysid. Noqo mid niyad ahaan iyo nafsi ahaanba u dhisan. Dadku way ku dhaleecayn doonaan, wayna ku dhaliili doonaan, wayna kaa mahadsan doonaan, waana ku niyad jebin doonaan. Waxay shaki gelin doonaan waxaad ka aaminsan tahay naftaada. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad marar badan guuldarraysatay kahor intaanad guulaysan. Waxaad wajihi doontaa caqabado badan. Haddii aad rabto inaad guul gaadho, waa inaad noqotaa mid waxyaabahan oo dhan si nafsiyan ah iyo niyad sami leh ugu diyaarsan oo adkaysi leh. Guushu waxay qaadataa waqti, waxayna u baahan tahay samir. Beddel hababkaad raacayso haddii aanad helayn wax natiijo ah. Siina wad isku-daygaaga ilaa aad ka helayso waxaad rabto. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Fadlan like saar muuqaalkan, ka ilaawin inaad sidoo kale subscribe saarto haddii aad nagu cusub tahay. waa horiga dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed.